madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud hadalkii shalay uu ka jeediyay masaajidka madaxtooyada Soomaaliya khudbadii kadib ayaa si aad ah maanta loo hadalhayaa iyadoona falcelin badan ay ka timid hadaladii uu ka sheegay masaajidka si gaar ah madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu ka hadlay arinta ay isku haystaan maamulka Jubbaland isagoona sheegay in madaxweyne Axmed Maxamed Islaam oo muddo 13 sano kaliya uu haysto magaalada Kismaayo sidoo kalena uusan ka bixin deegaanadaasi waxaana uu yiri 13 kaasi sano hal magaalo ayuu ku sugnaa haddana hubkii badnaa ee la siiyay oo beesha caalamka iyo dawladda Soomaaliya ugu deeqday maamulka Jubbaland waxa uu la soo baxay sidii uu la dagaalami lahaa ciidamada dawladda Soomaaliya ee geysay sida uu hadalka u dhigay deegaanada ay kala wareegayaan ciidamada ADMIS oo baneeyay deegaanada qaarkood madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa si kaftana waxa uu yiri madaxweyne Axmed Madoobe dhowr mar ayaan waxaan kala hadlay dagaalka maxaad u qaadin laadahay maadaama saaxiibadaadii ay halkaasi joogaan sidaas daraadeed miyaad u dhaafaysaa arintaasi ayaa si aad loo hadalhaya dadka qaarkoodna waxa ay leeyihiin madaxweynuhu waxa uu shaabadaynayaa madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam arintaasi ayaana mucaaradku si aad uga hadleen waxana ay sheegeen in hadalkaasi uu yahay hadal aad u weyn loona baahnayn madaxweynuhu inuu adeegsado madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waxa uu sheegay hubka iyo sidoo kale taageerada ay caalamka ku bixiyeen la dagaalanka ururka al-shabaab in Axmed Madoobe uu hubkaasi u kaydsaday baqaro halkii uu uga faa'iideysan lahaa xureynta gobolada maamulka Jubbaland ayuu sheegay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud hadalkaasi ayaa madaxweynaha ka soo yeeray waxaana loo arkaa in madaxweynuhu dhinac walba dagaal ugu jiro maamulka Jubbaland marka la eego ciidamada tirada badan ee dawladda Soomaaliya maalmihii ugu dambeeyay ay ku daabuleysay maamulka Jubbaland shalay mas'uuliyiin ka tirsan maamulka Jubbaland ayaa waxa ay tageen warbaahintan oo soo bandhigeen deegaanada qaarkood ay ka baxeen ciidamada ADMIS halkaas oo ay sheegeen in gacanta ku hayaan maamulka Jubbaland waxaana ay beeniyeen wararka dawladda Soomaaliya ay sheegtay in iyadu haysato deegaanada ciidamada ADMIS ay ka baxeen oo ciidamada dawladda Soomaaliya dib u la wareegeen maamulka Jubbaland ayaana waxa ay dawladda ugu baaqeen in ay joojiso maran habaaminta ay ku sameynayso shacabka Soomaaliyeed sida ay hadalka u dhigeen mas'uuliyiin ka tirsan maamulka Jubbaland iyo dawladda federaalka Soomaaliya ayaa waxa loogu baaqayaa in xaaladda ay dejiyaan wada hadalna arintan lagu dhameeyo laakiin xaaladdu sida ay hadda taagan tahay waxa uu egtahay ayaa la leeyahay gaar ahaan dadka ka falanqooda arrimaha amniga in gacanta ay gaari doonto laakiin waxaanu arki doonaa maalmaha soo socda sida xaalku uu noqon doono